Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan arday waa idin salaamaya. Maalintii hore waxaynu soo qaadanay 3 marxaladood oo kala duwan oo uu qofku marayo ama ardaygu marayo si uu luqadda Englishka ugu hadlo. Ku hadalka luqadda Englishku waxa ka horeeya 3 ama 2 qaybood oo muhiim ah oo aynu ku niri cashirkeennii horena ku sharaxnay. Habka ugu wanaagsan ama wadada ugu wanaagsan ee ku guuleysanayso inaad barato luqadda waa 3dan hab ama 3dan wadiiqo. Ugu horeyn inaad reading-kaaga ama pronunciation-kaagu aad u wanaagsan yahay. Haddii aad wax akhriyi karto, kicin karto, words badan haysato, kelmado badan haysato, waxaad u baahan tahay sidii aad u arrange garayn lahayd ama u habayn lahayd words-kan ama kelmadahan aad haysato. Marka maalinta hore waan idiin soo sheegnay waxaad u baahan tahay grammar. Grammar-kuna waan idin niri waxa weeyaan waa sayska luqadda. Haddaanad grammar garanayn wax badan dhisi kari maysid. Marka waxaad u baahan tahay grammar inaad iska dhisto. Grammar-ku waxaan niri waa sayska ama waa habka ama halkaynu ka duulayno. Haddii aad grammar haysato, words kelmado badan akhriyi karto, si fiican ugu dhawaaqi karto, waxaad ku hadli karaysaa luqaddii. Waxaad dhegeysan karaysaa sidoo kale waxay dadka kale leeyihiin ama ha ahaadaan muuqaallo ama ha ahaadaan qof si direct ah kula hadlay. Waxaad fahmi kartaa deedna hadhow waxaad awoodaa inaad ku hadasho luqaddii Englishka. Marka si aynu isdabahan ama isdabta koowaad, ta labaad, saddexaad iskaga dhisno, waxa waajib ah horta ka koowaad inaan dhamaystirno. Waxaan ku xigsiinaynaa ta saddexaad, ta labaad oo muhiim ah runtii aan u arko muhiim. Adigana kuu muhiim ah. Waxaa laga yaabaa waxbarashadeennii inta ugu badan inaynu kelmado badan ku haysano, laakiin sida aynu iskugu beegana aynaan hayn. Marka waxaynu yara door bidana inaan grammar-ka xoogaha aynu ku guda jirno insha Allah tacaala. Reading-ka ayaynu ku horeysiinaynaa oo step-kii koowaad ahaa. Maalintii hore haddaynu wax badan kusoo sharaxnay. Iminka dul carari doonaa hadduu Rabbi ogolaado. Reading-ka waxaan codsanayaa, reading-ka waan ka yara boodi doonaa, wax badan kama sheegi doono. Laakiin reading-ku waa akhrintii, inaad akhrido kelmaddii ku dhawaaqdo kelmad ku habboon ama sidii dhawaaqeegu saxda ahaa oo lagula fahmi karo oo qofka u dhashay iyo qofka bartayba kula fahmi karaan. Marka aad ereyga aragto deedna ereyga aad ku dhawaaqdo, ereygaas oo markaa qoran tusaale ahaan marketing. Ereyga ku dhawaaqaysaa qofku waa inuu kula fahmi karaa oo dhawaaqani dhawaaq saxa yahay. Laakiin haddaan tusaale ahaan a boy aad iska tiraahdo tusaale ahaan boy iska tiraahdo, khalad weyn baa halkaa qofna kula fahmay boy, a boy, the boy. Labada kelmadoodba waa isticmaali kartaa. Isticmaalka marka reading-ku wuxuu kaa caawinayaa in wax badan fahanto, wax badan ku dhawaaqdo, sidoo kalena dhawaqa sida ereyga loogu dhawaaqayo, sida accent-ka loo isticmaalayo. Marka waxaan doonayaa inaan cashir gooniyo ka sameeyo kan oo accent-ka iyo kelmadaha sida ugu dhawaaqmayno tusaale ahaan inaan inta ka bilaabno ilaa Z ku dhamaystiro. Sidoo kalena phonetics-ka inaan wax yar ka dhigano. Laakiin waxaan doonayaa maadaama arday badan tihiin dhegashadiisa in arday badan oo kelmadahan akhriyi karta idinku jirto. Sidoo kalena dad badan waxa laga yaabaa inta halkan channel-ka ku xidhan inay yihiin arday wax badan soo dhigtay, iskuulka soo dhigtay. Waxaan xooga saari doonaa grammar-kan xooga saari doonaa. Grammar-ku waa barta ugu muhiimsan runtii weeyaan. Kana cashar baan ka samayn doonaa haddii Rabbi ogolaado. Maanta laakiin aynu galno grammar-ka aynu sharaxaad kooban ka bixino. Grammar-ku wax badan bay dad badan isweydiinayaan waa maxay grammar-ku, waa maxay, muxuu yahay. Haddii su-aasha ugu horeysa isweydiino what's the grammar? Grammar-ku ama grammatical arrangement of words in sentence waxaa la iskugu habaynayaa hab grammar. Micnaha kelmaddii ama wordskii baa la isugu habaynayaa hab sentence sax ah tusaale ahaan. Haddii aad haysatid tusaale ahaan a boy
aad haysatay tusaale ahaan beautiful aad haysatay Soomaali ahaan oo kale tusaale ahaan oo kale ayaad haysatay oo isku dhex daadsan yihiin waxani garaamarku wuxuu kuu sheegayaa sida ay u habaysan yihiin kelmadahaasi sida loo habaynayo ayuu kuu sheegaya meesha magacu la dhigmayo meesha adverb ku dhigmayo meesha prepositions ku dhigmayo waxaasoo dhan buu kuu sharaxayaa maxay garaamarku waayo markan uu qeexanaa systemic orderly arrangement si habaysan ama qaab system ah habaysan oo la garanayo ayuu wax waliba u habaysan yahay ama kelmadii ama sentence ku habaysan yahay the study of rules waxaa markaa la yiraahdaa waa barashada the study of the rules waa barashada sharciyada for forming ay u samaysmayaan ama loo maamulayo sentence-ka loo habaynayo sentence-ka qaabka loo habaynayo ama nidaamka loo habaynayo sentence-ka ama sharciyadiisa sharci kasta waxa laga yaabaa habaynta la habaynayo kelmadaha sentence-ka loo habaynayo kelmadaha sentence loo habaynayo sharciyada barashadooda ayaa maxay ayaa grammar la oranaya ama waa foundation of the all the language waa barashada ama foundation-ka language-yada dhan way grammarka markaa laba inuu qaybinaynaa laba qaybood oo uu qaybinayo waxa weeyaan nine part of speech dadka qaar ba waxay u dhawaaqaan parts laakiin parts baa sax nine parts of speech sagaalka qaybood ee ku hadalka ama speech-ka ama hadalku mar wuxuu noqdaa nine mar eight baa la yiraahdaa eight part of speech marka article baa la raaciyaa nine baa laga dhigaa sagaal articles-ka la raaciyo way thesis-ku waa kuwii la tacalluqay thesis-ka marka wax ka yar horeeyna nine part of speech-ka ka horeeya oo waxa thesis-ku wuxuu ka sheekeeyaa waa waqtigii dhacay imikuu dhacay imika waxay way socdaan sidee nidaamka jumladeed ee u fahmi lahayd ayuu thesis-ku ku sheegayaa waqtiyada ay dhacayeen wax dhacay waxa soo dhaafay wax tagay thesis-ku intaas ka sheekeeyo way nine part speech isagu waxa uu ka kooban yahay sagaal qaybood uu ka kooban yahay sagaalka qaybood uu ka kooban yahay maanta cashir baynu dhiganaynaa qayb baynu dhiganaynaa qaybta dambena waxaynu dhiganaynaa cashirkeen xigeysha nouns waa magacu waa wax kastoo la magac ah tusaale cali libaax shabeel hargeysa berbera muqdisho burco waxaasoo dhani waa magacyo tusaale xayawaanka oo kale cat waa bisadii magacyo waxaasoo dhan waa magacyo isagu wuxuu ka sheekeynaya waa magac wax kasta oo magaca meel goob waxaasoo dhan waa magac waynu qaadan doonaa midmid baynu markaa u qaadan doonaa iyagoo intaa ka faahfaahsan pronouns waxa weeyaan waa magacyaal waa halkii magaca ayuunba bedelmaysa waxa magacyaal baa la isticmaalay tusaale ahaan Umar is a good person Umar waa qof wanaagsan Umar waa qof wanaagsan he is a good person isagu waa qof wanaagsan waxaan kala isticmaalaa laba xagga hore magac baynu gelinay Umar baynu gelinay xagga kale waxaan gelinay he macnaheedu waxa weeye markaa kan dambe pronoun waa magacyaal magacii uu bedelay halkii magaca ayuu bedelaya waa intaas adjectives waxa weeyaan waa sifeeye waa maxay sifeeye tusaale ahaan he is a good student isagu waa arday wanaagsan good waa maxay waa adjective waa sifeeye wuxuu sifeynayaa ardaygu sifeynaya marka adjective-ku waa sife pronoun-ka marna aan isticmaalo noun-ka isticmaalo Umar is a good person ama aynu idhaahno Umar is a good student Umar waa arday wanaagsan marka wuu sifeynayaa marka saddexdaa hore sibay iskugu xidhan yihiin marka way isku xidhan yihiin saddexdaa hore way wada shaqeeyaan inkastoo kuwan kale wada shaqeynayaan laakiin saddexdaa hore ilmaadeen rumi bay wada yihiin aad bay iskugu dhow yihiin aad bay u wada shaqeeyaan marka intaas weyn maanta ku joojinaa cashirkeena wixii dambe waxaynu ka qaadnaa verb